la reebaba ayaa aad loo jecel yahay marka haddii qabiilkan la sheego wuxuu noqonayaa qabiilkii wax caadi uu noqonayaa sida quraanka uu sheegayana wuxuu noqonayaa waxaan isku aqoonsano li tacaarafu marka koowaad aad iyo aad ayaan idin salaamayaa akhyaarta indheergaradka aqoon-yahanka musheekhda dhallinyarada iyo dhammaanba haweenka ku nool gobollada dalkan Switzerland khaas ahaan inta nawaaxiga gobolkan Zurich agtiisa degan iyo inta gobollada inooga timidba sida fiican qiimaha leeyahay habeenkan caawa uga soo qayb gasheen programkan sida ciwaanka ku qornayd waxaynu caawa isugu nimid oo marti inoo ah professorkeena qaaliga ah professor Cabdalla Umar Mansuur hawshaas oo in muddo laga soo shaqeynayay waxay xagga Allah ka suura gashay inuu kulanku inoo noqdo habeenkan caawa haddaba waxaynu bilaaban doonaa programkeennii habeenkan caawa aynu ugu talagalnay oo ka kooban qaybaha uu professorku ku soo talagalay inagoo siinayna inta badan waqtiga isaga maadaama ay ku kooban tahay munaasibaddu ay tahay munaasibadda afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ay tahay faahfaahinta dib baanu dhigan doonaa madasha maadaama aynu isugu nimi waxaynu ku furan doonaa aayadaha quraanka kariimka waxa inoo furi doonaa walaalkeen sheekh khadar ayaan ku soo dhaweynayaa si uu aayadaha quraanka inoogu furo a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wal 'asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم آياتها القرآن كدبديت وحاسي official ay noogu furmaya programkeenan caawa haddii aan hordhac yar oo kooban ka hormariyo furitaanka dhammaanteen waan la soconnaa maaha markii koowaad ee uu inoo yimid professorku waa markii labaad codsi aan laga dalbaday oo loo bogay raadkii uu ka tegay kulankiisii koowaad dartiis ayaan mar labaad loo codsaday inuu inoo yimaado professorkeena Cabdalla Umar Mansuur marka laga hadlayo dhaqanka iyo afka waa ashkhaasta ama shakhsiyada farakutiriska ee ah qaamuuska ama diiwaanka socda ee uu ku lifaaqan yahay dhaqanka Soomaaliyeed una baahan in laga faa'iideysto ku dheeraan maayo anigu kulley taariikh nololeedkiisa oo dhan ma aha mid aan halkan ku soo koobi karo wax kooban waa la inooga sheegi doonaa laakiin sida caadiga bugaagtuu qoray qoraaladu sameeyey lagjarradu bixiyey iyo aqoontii jaamacadda oo heer jaamacadeed inuu ku bixiyo ahaydba waxaynu nasiib u leenahay habeenkan caawa inuu horteena inoo joogo oonu inaguna ka faa'iideysan doono isla markaana ka dhaansan doono maskaxda iyo kolba intii garashada Ilaahay ina siiyey waxa aan marka koowaad ku soo dhaweynayaa walaalkay Cabdalla Saciid oo ah shakhsiga asaga iyo asxaabtiisu ay abaabuleen ee inoo suura galiyay kulankan Allah dabadii waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay Cabdalla Saciid dhammaan waxaan u mahadnaqayaa dadkiina ka soo qayb galay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaa nuqmaal walaalkay Cabdalla Umar Mansuur
oo si sharaf leh noogu yimid meeshaan oo codsigeena naga codsaday iyo inteynaan ka soo qayb gashay runtii caawa aad baan u faraxsanahay saas uma hadli karo marka waadna taqaaniin runtii mahad gaara ayuu mudan yahay isaga iyo ashkaas kale oo isku hawla inay kulmiyaan bulshada isla markaana programkeennan aan hadda ugu magac darnay martida suyirikh oo kolba aqoon-yahanka musheekhda siyaasiyiinta iyo ciddii aan door bidayno bal inay waxaan laga faa'iidaysan karo ama wax ku laaban yihiin inay noo yimaadaan in badan ayay xilka iska saareen cabdalle waxaan leenahay mar labaad adiguna mahadsanid sida aad dadweynaha ugu mahad celisay iyo profesorka iyo intan ka soo qayb gashay dhammaanteenba waxaan rajaynaynaa inta iyo kuwa kaleba inay inoo suuro geli doonaan insha allah intaas dabadeed waxa aan ku soo dhaweynayaa warbixin iyo taariikh nololeedka profesorka bal in xubno laynooga taabto walaalkay ustaad xaashi yaasiin cismaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيد وناكسن لمانتين انت اسكدب waxaa farxad iyo nasiib inoo ah haddaan nahay qurba joogta Soomaaliyeed ee Switzerland gaar ahaan magaalada Zurich inuu caawa markii labaad nala joogo Professor Mansour Professorku 5 sano ka hor ayuu Zurich noogu yimid waxaan eeba ka rajaynayaa inaysan noqon booqashadii u dambeysay ee Switzerland intaan u gudbin taariikh nololeedka professorka waxaan yani si kooban u dul cararayaa oo wax ka oranayaa afkeena iyo dhaqankeena eeba wuxuu noogu deeqay af hodan ah iyo dhaqan badankiisu ku salaysan yahay diinteena suuban ee islaamka runtii waa laba mowduuc oo aad u ballaaran oo ugu yaraan u baahan koorso 6 bilood ah nasiib wanaagse professorka ayaa caawa inoo soo gudbin doona miidda amaba nuxurka labada mowduuc wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa wixii naga khaldamay si aynu isu saxno oo aan uga faa'iidaysano wanaagga afkeena iyo dhaqankeena laba arrimood ayaan xusayaa anigoo ka faa'iidaysanayo fursadda tan koowaad waxa weeye hodantinimada afkeena nin la oran jiray Richard Burton oo ahaa dhul sahamiye Ingiriisa oo Soomaaliya yimid qarnigii 19aad ayaa Soomaaliya ku tilmaamay dhulkii ama dalkii gabayaaga land of poets waxaan xusayaa runtii oo aan isleeyahay afafka kala adduunka lagama yaqaan luqadeenu waxa weeye waa luqada kaliya oo yani waxyaalo badan laga soo bilaabo ilmuhu markay dhashaan oo loo qaado huwaayada ilaa dadku qaangaaraan ama waayeel la noqdo ay ku wada salaysan yihiin nidaam maaragtay miisaaman oo sidii suugaan oo kale oo qaafiyada huwaayada haddaa kasoo biloodid ilmihii markuu waxaa bay-adiis lagu barahayaa googaale iyo halxiraale markuu qaangaaro oo teenager noqdo si uu carada iyo wax walba isaga biiyo waxa la barayaa wax la yiraahdo caraatan mid walba waa miisaaman yahay mahayadii waa miisaaman yihiin caraatankii oo cayf hol xun oo aan la sheegi karin waa miisaaman yahay kadib baa markii dadka waaweyn wuxuu kala baxayaa gabay iyo jiifto iyo dhinaca dumarkana waxay yeelanayaan maxaa la yiraahdaa buraanbur gabayada waxa isugu jiraan maaragtay jiifto waxa jira guurow shirib baa jira waxaas oo dhan waxay ku wada socdaan waa alliterated waa wada miisaaman yihiin oo yani haddaana khaldaneen ma u maleelayo waddan kale in laga helayo xataa iska daa wax kale cayadeena iyo habaarkeena da waa miisaaman yihiin qaafiyad bay ku socdaan oo waxaan tusaale ahaan usoo qaadan karaa laba habaar oo miisaaman oo matalan waxaa jirta aan maqli jirin markaan yaraa baaf qandhaa qurquri waa habaar baaf qandhaa qurquri waa miisaaman yahay laakiin qaa ku socdaa iyo qandho fil daran qaad marka yani mu u maleynaya inaa afafka kale adduunka laga heli karo yani luuqad saas hodan u ah oo yani laga soo bilaabay ilmaha huwaayo hooyada ma joogto kabaxkabaa u socotay geedkii habaas dheere u miisaamantahay sidoo kale heesaha markii ceel la shubahayo markii maaragtay xoolaha lala joogo waxaasoo dhan waa wada miisaaman yihiin heesaheena kulli waa saas marka intaas baan ka oranayaa qodobka labaad oo inaan wax yar ka ilaan waxa weeye waa qoraalka af Soomaaliga Soomaalidu waxa weligeed lagu tilmaami jiray oo oral society ama bulsho afeed aan qoraal lahayn taariikhda qoraalka af Soomaaligu waxay soo bilaabatay qiyaastii 95 sano ka hor bay soo bilaabatay Ismaan Yuusuf Kennedy oo ahaa gabya filosofa ayaa markii ugu horeysay curiyay far Soomaaliyeed
1922 wuxuu markii hore gabayadiis ku qori jiray farta carabiga kadibse wuu iska daayay wuxuu arkay inaan lagu qori karin farta carabiga sababtoo ah farta carabiga waxaa ka maqan laba xaraf oo af Soomaali ku jira oo aan carabi ku jira oo ah e iyo o saa daraadeed ayay ku kaliftay inuu soo alifo fartan Cusmaaniyada magaciisa loogu magac daray markii dambena waxaa qaadatay ururkii SWL ayaa ka dhigtay baarakay farta Ismaaciiliya laakiin gumaysiga Talyaaniga ayaa dagaal ku qaaday oo ka dhigay inay tahay far qabiil leeyahay Ismaaniyada waxa loo oran jiray maxay isaga la oran jiray Ismaan markii isaga laga soo tago oo waqtigaas waxa kale oo jiray nin kale oo oran jiray Cabdiraxmaan Sheekh Nuur oo 1933 isagoo far kala alifay oo nin reer Booramo ahaa iyadiina waxa lagu shaabadeeyay magac qabiil farti Booramo laakiin magac kale lagu shaabadeeyay oo qabiil ah laga soo gudub 1952 Xuseen Sheekh Axmed Kadare ayaa isla far curiyay waxaana iyadana lagu shaabadeeyay qabiil oo reer hebel baa iska leeyahay waxa kale oo jiray qolooyin u ololeeya in la qaato farta carabiga intaasoo markii laga soo tago ugu dambeystii dawladii dhexe ee ayaa 1927 go'aan ka gaartay in la qaato farta Laatiinka ah ee aynu hadda isticmaalno mid hadda wax noo qoran taas waa mid dad badan ayaa doorar waaweyn ka soo qaatay horumarinta qorista baarista iyo kaydinta af Soomaaliga qaamuuska ugu horeeyay waxa qoray Allahu naxariisto Yaasiin Cismaan Keeladiid 1976 dadka doorka ka soo qaatay af Soomaaliga intooda nool waxa caawa nagala jooga halkan Professor Mansour oo aan runtii ku tilmaami karo living legend ama taariikh nool waxaan si gaar ah mahad ugu celinayaa mudane Cabdalla Saciid oo runtii lahaa fikirka casumaadda professorka iskuna soo dubariday munaasabadda caawa waxaan kaloo u mahadnaqayaa mudane Abuukar Boob Alfanaan Axmed Yaasiin Faarax Yaasiin Cismaan agaasimaha Sahan TV oo munaasabadda darteed Denmark nooga yimid iyo mudane Camow raggan oo aan la'aantood ay arrinta naga dhicisoobi lahayd ugu dambeystii waxaan soo gudbinayaa taariikh nololeedka professorka professorku jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ayuu ka baxay 1976 kadibna dalka Talyaaniga ayuu takhasus ku sameeyay wuxuu ka mid ahaa professoradii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho laga soo bilaabo 1976 ilaa 1990 1990 dalka Talyaaniga ayuu wareegay halkaas ayuuna ka sii waday cilmi baaristii af Soomaaliga isagoo la shaqeynaya aqoon-yahanadii ay hore u wada hayeen hawshaas wuxuuna xubin ka yahay xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed ee Università Roma Tre halkaas oo uu bara ka noqday dhowr iyo 10 sano wuxuu qoray qoraallo badan oo ku saabsan afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed buugtiisa ugu doorka roon waxa kamid ah mid la daabacay 1981 oo la yiraahdo afafka bahda kushitiga iyo taariikhda af Soomaaliga oo Muqdisho lagu daabacay waxa ku xigay 1999 barashada naxwaha af Soomaaliga oo la qoray oo ay la qortay khabiirad kale oo liyaha Bulyeeli iyadana London baa lagu daabacay 2009 wuxuu qoray taariikhda iyo luqadaha bulshada Soomaaliyeed Sweden lagu daawacay 2012 qaamuuska af Soomaaliga oo la diyaarisay oo ay la diyaarisay professorada liyaha Bulyeeli wuxuu Professor Mansour bilad sharafa ku mutaystay buugiisa la yiraahdo taariikhda iyo luqadaha bulshada Soomaaliyeed oo galay kaalinta koowaad ee buugta afka Soomaaliga ku qoran ee la soo saaray 2009 waa mahadsantiin waxaynu sugnaaba waa professorka oon hortiisna keeno iyo programkeennii caawa insha allahu tacaala waxaan u yeedhayaa professor Cabdalla Cumar Mansour sida aad u jeedaan afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed waa mowduuc aad u ballaaran waxaan ka soo qaaday maxaa inaga qaldan jawaabta haddii si degdeg ah aan ku celiyo wax aad iyo aad u badan ayaa inaga qaldan mana soo koobi karo laakiin waxaan diiradda saarayaa qaybta xagga afka iyo dhaqanka anoo siyaasad aanan u weecanayn saddexdan sawir muujinayaan waa geela wuxuu matilayaa reer guuraa ama maxaan ku yiraahdaa reer miyi nooc kastaba ha ahaadeen masaajidkana waa diinta islaamka
iyo baabuurkaas ay u jeedaan isagana waa reer magaal. marka 3 dhaqan oo midka miyiga sooyaal oo qadiim ah, kan islaamkana waa mid 500 ilaa 1000 sano haatan laga joogo islaamka, diinta islaamka ay noo timid, iyo midda dowladnimada ama reer magaalnimada ama dowladnimadaba aan yiraahdo muddo maartay nus qarni oo aan maartay inuu soo gaaray. mushkilada marka ugu weyn dhibaatadana haysato waxay tahay 3dan dhaqanba Soomaalidu wada leedahay, laakiin sida ay isu waafajin lahayd ayaa dhibtu ka taagan tahay. mushkiladeeni u badan meeshaas ay maartay ay u badan tahay sida anigu ila tahay. gaar ahaan dhaqanka miyiga ayaa la qabsigiisi ku adag, maxaan ku yiraahdaa inta kale diinta iyo maxaan ku yiraahdaa dowladnimada. waa maxay marka guud ahaan waxaan fiirinaynaa dhaqanku guud ahaan waa maartay hab nololeed ee ummad ama bulshad ay leedahay, taasoo ah aqoon, fikrad iyo maxaan ku yiraahdaa caadooyin, hab diimeed iyo xeer iyo wax la mid ah oo jiilba jiilka kale u gudbinaya iyadoo aan qorneyn. taasaa caado ah. dhaqan sidiisana wuxuu ku salaysan yahay, wuxuu ka yimaadaa hadba deegaanka siduu u yahay iyo xirfadda dadka. mitaan xoolo dhaqatada dhaqan gaaray leedahay, beeraleyda waa dhaqan gaaray leedahay, ugaarsatada sidaas oo kale, kalluumaysatada iyo reer magaalku isku dhaqan ma aha. maxaa yeelay deegaanadoodu waa kala duwan yihiin, howlahoodana waa kala duwan yihiin. marka dhaqan sidiisaba qolo kastaba ha ahaatee labadaas shay ayaa maartay aasaas oo ah. dhaqanadaas aan soo sheegay kulli kama wada hadli karo, waxaan diiradda saaraya, waxaan leeyahay reer guuraaga, dhaqankii reer guuraa oo caam ahaan haddii aan qeexno maxaan ku yiraahdaa xoolo dhaqatada adduunka meel kasta ay joogaan, waxaa nimanka anthropologiga baara waxay yiraahdaan waa dad maartay dagaal badan. haddana dadka hilib cunka badanna waxay takhaatiirtu ay tiraahdaa waa carab badan yihiin. sidaa darteed dabeecada raacatadu way ka duwan tahay beeraleyda iyo kalluumaysatada. dhakhaatiir kale waxay leeyihiin qofka waxa uu cuno ayuu dabeecadiisa leeyahay. macnaheedu maxaa waaye haddii mithaal xoolaha oo maaragtay dhibka badan leh sidooda dadkoodana ay u dhib badan yihiin, laakiin beeraleyda iyo kuwa kale hilib cunka ku yar waa ka degan yihiin. waxaaba laga yaabaa qur-aanka uu naga celinaya oo uu naga xaramay inaan cunno hilibka doonfaarka. waxaa dhici karta, allahu yaclam, waa sidaani ila tahay, maadaama doonfaarku uu cuno saxaradiisu cunaa, hooyadiisa ma dhaafo. marka boorka ayba yidhahdaan boorka waa wasakh, waa isaga dhan waa wax wasakh ah. marka waxaa cunto wasakh ah adigaa wasakh noqonaya ama dayuus noqonaya. xataa waa aragteen gaalada ma aragtay kuwa waxaa jira hooyadooda guursanaya ama ayeeyadoodii ama walaashooda ama awoowe oo ma aragtay aysantiisa aana dhaafayno. aysan waa taqaanin aanu malayno. marka laakiin halka geela ama ratiga lagama sugaayo in uu ma aragtay hooyadiisi damaco, lagama sugaayo. xataa haddii indhaha laga xiro oo loo saaro waa aargudsanaya, waa dilaya. marka maadaama Soomaaliya geography ahaan deegaanka xoolo dhaqatada ay ku badan yihiin geography ahaan baan iri, xukumo ahaanna dadka xukunka u badan ay yihiin, dhaqankaas xoololeyda ayaan maaragtay diiradda sii saaraya. siiba qayb ka mid ah dhaqankaas ayaan rabaa maaragtay inaan diiradda saaro
oo isagoo u kala baxaya mid wanaagsan iyo mid xun. shayga marka waxaa roon haddaad rabti inaad daaweysid waa in marka hore aad baarta, markaasaa daawo la helaya. marka hogatuska soo socda ayaa waxaa maaragtay si kooban aan halkan ku muujinayaa waxaa la yidhaahdo xeerka geedka. dhaqanka isagoo badan haddana xeerka geedka. soomaalida geedka wuxuu u ahaa barlamaan, wuxuu u ahaa meesha maxkamadda, meesha lagu gabyo, meesha maaragtay jarada iyo waxa lagu cayaaro. haddii xaajo ay timaado waxaa geedka hoostiisa isugu yimaada maaragtay intaasoo xubnood ayaa isugu imaadaan, maqaawirta golaha la yidhaahdo. waxaa ah xibinta koowaad guurti. guurtidana waxawaaye waa akhyaartii meeshaas. waxaa ku xiga xeerbeegti, waa dad maaragtay khabiir ku ah xagga xeerka oo lagala tashado, waa dadkii sharci yaqaankii oo kale ah. buuni waa nin wadaada, isagana lagala tashado xagga sharciga islaamka shareecada ah haddii wax laga hela. guddoonsha waxa waaye waa ninka boqorka ah ama ugaaska ah oo guddoomiye markii go-aan la gaaro, isaga keligiis go-aan ma gaaro. gardoone iyo garqabeen waa labada dacwada isu haysta. qareen ayaa loo baahan yahay, qof waxaa jirta oo aanan afkii aan aftahan ahayn, waxaan kari karin, qareen abokata ayuu leeyahay. iyo markhaati ayaa loo baahan yahay isagana in meeshii uu joogo. waxaa jira laba oo xagga farsamada teknikada ah. wargure soomaalida markii miyiga ay joogto oo ay xaajoonayaan, ninka dacwoonaya codkiisii hoosoo u dhigaya, caradiisana ma muujinaya. marka waxaa portavoce waxa la yidhaahdo afka ajnabiga, ama codka kor u qaada sidii microfonkan oo kale kor u qaada. ninaa joogo wargure la yidhaha haye sidaasuu yidhi kana u hadlaya, waa ku celinaya. isaga waxaa waaye microfonkaas ayuu yahay. waxaa jira kan tobnaad naawile, nin isagana warka aruuriyo oo ereyna aana ka fakanayn, haddii lacala la isqabsado ayuu leeyahay meesha sidaasay ahayd. dacwada marka sidee loo qaadaa? dadkaas markii la helo dacwadii waxaa la raadinayaa dacwadaas nooca ay tahay ayaa la raadinayaa. marka dacwada nooca ay tahay shaxda soo socota ayaa maaragtay waxaa ah. garta waxay u kala baxdaa dhiig iyo dhaqan. marka dhaqanka waa xilo xagga haweenka ku saabsan, xoolaha, martigelinta, magan intaas. dhiiggana waa maaragtay dad maaragtay la dila kow laga siiya, ama qoon oo qof meel looga dhaca sida qadaf, dhaawac, kufsad, tuugo iyo maaragtay wax la mid ah. markii la ogaada dacwada waxa ay tahay ayaa gartii la bilaabaya sidii gartii loo qaadi lahaa. waxaa hadlaya ninka awal dacwada qaba ayaa hadlaya tartiib. waxaa kasii daba hadlaya ninka dacwada loo haysta ayaa kasii daba hadlaya, isdifaacaya. marka garta waxay u kala baxdaa saddex arrimood midkooda waa inay noqoto gar qiraal, inuu qofkii qirto anigu dembigii waa gale. markaad gartaas xaggay ku dhammaanaysaa, ciqaabtiia loo sheegayaa waaba dhammaatay. haddii qofka aanan qiran waxaa loo baahan yahay markhaati, inuu markhaati keeno. haddii markhaati maxaanku yidhaahdaa la waayo oo ninkiina aanan qiranaynin, midda saddexaad waxay tahay waa dhaar, waa in la dhaariyaa qofkii. kee la dhaarinaya? kan dacwada, sida hadda maxkamadaha caadiyan maaragtay, ama kan dad dacweeye ama kan la dacweeyaha ah. waxaa marka u soo noqonaynaa markhaatida. qofka markhaatida ah waxaa ka reeban inuu xiriir la leeyahay qofka uu markhaati kacaya. xiriirkaasna waxuu noqon karaa shantan midkood, waa ka reeban yahay, ma noqon karo. naashaye waa mid xiriir xagga hooyada, abti iyo maxaanku yidhaahdaa iyo ina habreed iyo wax la mid ah. lughaye waxa waaye waa wixii xidid ahaan sodoga, seedi iyo wixii la mid ah.
لقهية وعنين لمصروفه maaragtay oma magan ah ma geli kara xigaal waa midka maaragtay xagga waalidka aabbaha ah asagana adeer iyo maxaanka walaal iyo ilmo adeer iyo ma geli kara xabiib isagana waa saaxiibka ninka saaxiibka isagana markhaati ma geli kara waxa leeyahay waa la duri karaa leeyahay ma ah qofka marka la dhaarinayo marka ha ahaade kan markhaatida ah ama labadooda kii noqdaba marka waxaan soo qaadanayaa aniga qayb ka mid ah reer miyigoo dhan ma aha waa halle ma wada sheegi kara weli hal gobol waaye laga yaabaa aanan dadka aanan ee tusaale ahaan aan u soo qaadanaya marka ninka la dhaarinaya marka hore maxay sameeyaan meelaha qaarkood waxaa leeyahay meel inta saa loo goobaabiyo dhulka ayaa dhexdaasaa la istaajinaya gacanta midigna waxaa loo gelinaya dhagax halkaas markaas meeshaa lagu dhaarinaya waxaana la leeyahay xero oodan baad ku jirtaa waxa aad haysana waa dhagax ma dhalo ma dhiiqo inaadan arrintaa wax lagaa weydiinaya been ka sheegaynin ma tii ilaahay sida dhagaxa kaa dhigay baa haddii mar la yidhaahdo waxaan warkaan ka hayaa aw daahir afqarshe in la yidhaahdo oday maaragtay aada iyo aad suugaantii dhaqan ku dheer wuxuu yidhi lagama sugaayo inuu been sheego aad buu isu kurbeynayaa waa haddii aad kitaab qur-aan aad u dhiibta tanuu maaragtay ayaa kitaabka laga yaabaa inuu ku dhufto markiiba tanaa u daran marka xeerka ciqaabta haddii aan qaar aan ka soo qaado maalan qadaf qofka yacni aad u gafaysa maxaa waaye aflagaado oo qof aad ku samayso ama dharbaaxa ama jeedaal maxaan ku idhahdaa karbaash koonfurtan aan ku niraahno ama kabt ama haraati intaasba dembi ayay ahayd reer miyiga waxayna keeni kareen maaragtay dagaal iyo dil ayay keeni kareen sidaa daraaddeed si arrimahaas loo celiyo waxaa la bixin jiray yani qofka ganax ahaan in farda iyo geel ayaa la bixin jiray weliba haddii uu ninkaas uu yahay maaragtay mid ka mid ah madax uu yahay ama qof magac dheer leh ama culummo ah magtu waxay noqonaysaa xilo iyo xoolo yacni waxa waaye xoolaha ka sokow haddana gabaraa loogu daraa raalligelintiisa haddii qofka maaragtay lagu sameeyo uu yahay nin qaraabadiisa ah oo ku sameeya ama nin madaxdiisa ah ama xaaskiisa ku sameeya ganaaxiisa waxaa la yidhaahdaa muraadona waxay tahay ninka neef geel ah kan ugu qaalisan ayaa la leeyahay qal gacantiisu ku qalaya ninka maaragtay dembiga laga galayn isagana waa la qabanaya si meeshii waxa uu timaada maslaxa meeshii marka hilibkii lagu cuno ayaa lagu maslaxoobaya tuugada ayadana aad iyo aad ay dhinacaas maaragtay soomaalida waxay ka ahayd wax aad u fool xun sidaa daraaddeed waxa uu xado 3 jibaarkiisi ama 7 jibaarkii ayaa laga qaaday si aan tuugadaas aanan u soo noqon midda kale oo la yaab kale waxay tahay ninka qaraabadiisii waxba lama bixin jirin lama kaalmaynayn tuug tolmale taroox waxaan anoo yaraan maqli jiray haddaad xusuusantihiin inaad odayada waaweyn oo meesha marka tuug looma eexin jiray inta kale waa loo eexin jiray laakiin tuugga marka wuxuu ahaa qof ceebaysan bulshadii marka badanaaba waa ka carari jiray meeshaas soomaalidu waxay ku maahmaahdaa maaragtay mahmahan laakiin waa inaan sheegaa waxay soomaalidu tidhaahaa gows tuug iyo gus macsiyo midna xeer uma lihin macnaheedu waxaa loo leeyahay gus macsiyo wax kale ma ahe waa kufsadka waay soomaalida aad iyo aad ay uga dhowrsanaan jireen maaragtay arrintaas kufsadkana sida tuugi oo kale waaye isagana looma naxariisanayn cidna ma caawinaynin haddii maaragtay waxaa laga qaadaa 5 halaad ilaa 10 halaadaa laga qaadaa oo geel ah cid la bixinaysanin ma lehen
marka isna wuxuu ahaa mid ku ceebaysan bulshadaas waa ka cararay meesha martigelinta qiimo weyn ay Soomaalidu lahayd Soomaalida miyiga ma qaadan jirin sahay marka ilaan safar aad galaysid aadan baabuur raacaynin waxaad u baahan tahay cunno aad u baahan tahay oo meel laba beri loo soconayo cunto ma qaadan jirin meel alla meeshii reer Soomaali ay arkaan ayaa maaragtay khasab lagu ahaa in la martigeliyo ciddu kasta ha ahaaday waa la martigelin jiray weliba mararka qaarkood waxaa loo qali jiray xoola ayaa loo qali jiray marka qofkii marti aanan maartay sidii la rabay aan u martigelin ama uu soo dhaweyn waayo xukunkiisu wuxuu ahaa inuu wan maartay uu qalo wan weyn uu qalo waxaan ku soo dhaweyn doonaa walaalkay abwaan cabdiraxiim talayb si uu bal isaguna qaybta uu ku leeyahay abwaanada Soomaaliyeed maadaama uu isagu meesha joogo uu noogu matalayo in uu noogu sii gogol xaaro qaybta luqadda afka Soomaaliga iyo aragtidiisa soo dhawow marka horta dadkii dhintay ee noo hiiliyey kuwii qoray iyo kuwii ku dadaalay hadda uu ka sheekeynaya xaashi raggii 100 sano ka hor xilka iska saareen af Soomaaligu yeesho far qoraala inkastoo hadda aan su'aalaha rabaan uu mid ka duwan inaan weydiiyo professorka aan hadda ka hor dhacaynin oo aan aaminsanahay 100 sano iska daayo kumanaan sano ka hor in afka Soomaaligu qornaa laakiin waxay naga jahil saari doona professorka bal waxaan rabaa tix yar oo aan ku taageerayo afka kagana hadlayo marka dhibaatooyinkan aan soo hadlay inaan iyadana habsuugaanada idinku soo gudbiyo hada ma sahirarkii murtida gabay hilaadiisa murtihoodana hawraar macaan hadal hufnaantiisa aan holiya tix waa lama huraan inaan u horshaayo aan habeeyo maanta kale hawlgal leeyahay ujeedkaygu waa wali waa hayaan aan la hurahayn hilkii afkeeniyo oraa hubinta weeyaane ka hayaan shisheeyaha midkii hagidii weeyaane hab qaraal hogaaniye hab hanaaniye dhigaal halabkeed weeyaan afartaa sir doogliya caleen hawrtay u baxeed hogashooda adoo hortay iyo halab karuurkeed habsamaanta dhaqankiyo hindaa helistii waayelda afar kale hog aan doortay iyo hadalka Soomaaliyeed afku horumar buu doonayaa hawlo loo galay ee higsi iyo hiraal buu rabaa lagu habeeyay habdhacda iyo luuqdu rabaa lagu hanaanshaayay hayb iyo dirsooc buu rabaa lagu higaagaayo halqabsi iyo ujeeddu rabaa hoosna loo dayo hog inuu ku dhaco waa u halis lana hilmaamaayo hafashiye dhib weyn buu qabaa la hufinayaa shisheeyaha halgaadiyo ku wada halis colaadeeda hadba erey ayay siibayaan kii hore jiray hantaaqooyin baa lagu wadaa hoos dugud weyna dadka hirana lama haayo weli hoobadka galay horseedkii aqoontu u lahaa waa hagranayaa hebad weeye kaan barax ku darin hadalka Soomaaliyeed hadalada qalaad baa inta aqoon loo hormariyay buuniga hatiga ka badan heelka geedaha ka hayire dadkiisa ma jiro ruuxu hawliye hogaan maamul oo hil u gala kii hore jiray hooy lagu ilaashiyo ma laha hoosin loo dhigay hadalkiisa ma ma jiro haniya muuqaale hooyaaladii gabayga iyo tixiya hawraarta in yaro hunguri kaga jira haysa maanta ba amar hor hog weyn gali lahaa hadalka Soomaaliyeed nin kasto hareertaada qabo waa hantida guud ama haanka gowa habkaad u hintinayseen marka waxa jirta Soomaali orax ay leedahay dad waa kugu labo la noolow oo nabad la ahaw ama ka noolow nacab ahaada marka qofka waxa u muhiimsan oo u daran waa in tolkiisa qofka kamid ah inta kale waa u nacab waxaad arkaysaa Soomaaliya xataa ereyada qaarkood hadaa aragtid saaxiib erey Soomaali saaxiib carabi waa waxaad moodaysaa inuusan jirin meelo qaarkood wadaay ayaa jira laakiin reer guuraaga raacatada ma laha saaxiib maxay u yeelan waayeen waa fikir waxa waaye haddii saaxiib uu yeeshana wuxuu leeyahay walaal waxaas iyaal yani waa tolkiisu ku darsaday walaal waxa xiriir wanaagsan uu la yeelan karo waxa waaye nin ka mid ah tolkiisa saaxiib waa midaan tolkii aan ka mid ahayn waaye marka ereyga saaxiib waxaad moodaysaa carabi inuu noogu yimid fadlan hataa waxaad arkaysaa waxyaabaha qaarkood Soomaali fadlan carabi noogu yimid marka qof wax uu weydiisanayo wuxuu leeyahay walaal uu leeyahay marka walaal uu yahay waajib ka yahay ma artay inuu caawino inay caawinaan marka eradan noocan oo kale waxay farta noogu fiiqayaan in
qofka tolkiisa mooye cid kale aanan jirin. waa waxyaabaha isku haysana. qaacidada asaasiga ah oo maaragtay qabyaaladda khaasan waxay tahay u hiile walaalka gar iyo gardarraba. tii jaahiliyada jirtay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii dambe uu saxay, haddii uu maaragtay qof cid uu dilo beeshiisa ayaa difaacaysa oo looma dhowaan karo ninkaas in la dilo, lama ciqaabo. cidda wax disha, cidda wax laga dilayna laba ayay maaragtay mid inay doortaan, in mag ay qaataan ama inay maaragtay qof oo qof kale ah, qof kastoo ah qabiilka ka tirsan ayaa la dilaya. nin aan waxba aanan galabsan ayaa la dilaya. kaana haddii la sameeyo waxaa imaanaya isku dhac, laba beel laba reeraa isku dhacaya. sidaa daraadteed wuxuu ku khasban yahay cidda wax laga dilay waxay ku khasban yihiin inay qaataan magta ayaa la qaataa. dhaqankan wuxuu marka aad iyo aad wuxuu u egyahay midkii jaahiliyadda alcasabiya ay lahayd oo annagana soomaali ahaan la dhihi kara qabyaalad. qabiil lama diidana sida qur-aanku uu sheegayo litacaarafuu inaan iska aqoonsano, laakiin waa qabyaaladii. qabyaaladiina waa ti aan sheegnay u hiili walaalka gar iyo gardarraba. marka qabyaaladan maxay keenaysaa? waxay qofka siinaysaa waxyaaba la yidhaahdo dallad caymis ah ama xasaanad. midda hadda baarlamaanka soomaaliya ay dubitaatiyaasha tii oo kalea la rabaa in qofka aan la ciqaabin xasaanad ayay maaragtay qabyaalada siinaysaa. waxaan ugu dhegannahay gar iyo gardarraba waxaa gargaar uu ka helaa beeshiisii. beesha ayaa la wareegaysa mas-uuliyad. xataa qofka waxaad moodaysaa inaan mas-uuliyadba aana qaadan. hadduu wax dilo qabiilka ayaa magta bixinaya, qabiilka ayaa difaacaya. marka wuxuu noqonayaa qofkii sidii cunug yar maaragtay oo aabbihii oo ilaalinaya dhibta wax walba ka ilaalinaya. marka tan ayaa aasaaska u ah sida aniga ila tahay qabyaalad ku dheganaantan qofka ugu dhegan yahay waa xasaanadan uu qabiil ka helay. waxa af ingiriis lagu yidhaahda privilege ayuu ka helaya, maaragtay hanti uu helaya, wuxuu rabuu dilaya. waagii aan yareen waxaan maqli jiray wallahi intaan kowkaas iyo taana ayaa qabiilkayga u bixinaya. yacni qabiilka waa badan yahay ma garata. marka waxaa jirta maahmaahiyo oo maaragtay farta ku fiiqayaan sababaha maaragtay dadka inay aaminsan yihiin inaanan noolaan karin qabiil la-aan aan noolaan karin. soomaalida isla soomaalida reer guuraaga ah ayaan ka soo aruuriyay. waxay yidhahdaan tol la-aan waa tows. tows marka cabdiraxiima ay fasiri doona waa dhibaato daran ama cudur aan la daaweyn karin. marka tol la-aan waa towsaa layidhi, waa dhibaato aan dhammaanayn. ma noolaan karo haystaaba ninka reer baadiyaha ah oo reer xoolo dhaqatada. waxay leeyahay buur ahaw ama buur ku tiirsanow. qofka keligiis maba ahaan kara. ama buur ahaw oo xoog yeelo tol leh. haddaadan tol lahayn oo ka soo tagtay degaankii tolkaagi buur ku tiirsanow, yacni cid kale oo buur ah ama xoog leh oo ku difaacdo ku tiirsano. nin tolkii ka tegey soo tanaado lawaa. yacni haddaad tolkaa ka tagtid xoolo haddii la dhacayo xoolihii la kala qaybsan lahaa wax ma helaysid. mata inteed ka helaysaa? marka waxaa lagu nool yahay dulmigaas. yacni ninka keligii socda waa labo, waa tuug ama waa tol la-aan. keligii ma socon karaba, meelo inuu cuskunaado. tuugga waataan soo aragnay, tol ma laha la yidhi. saddex ayaa dhulka ugu xun baa la yidhaahdaa. meel aan bannaan ahayn oo bahdaadu joogin aana lagu bixinaynin. meeshaasna maaragtay sidaasay u leedahay. tan ugu dambaysa saddex tolka ayaa kugu naca. hooy la-aan, hooyo maa hooy la-aan, hiil la-aan iyo hal la-aan. adan geel aadan lahayn waxna aadan helinaynin, yacni tolkaa kugu nacay. marka kuwaan iyo wax ka badan ayaa jira oo muujinaya in qofku uu aaminsan yahay tol la-aan aanan noolaan karin.
marka in qabyaaladu aanan maaragtay ka tirtirmin maskaxda soomaalida reer guuraaga ah oo reer magaal noqotay aanan ka tirtirmin waxaa astaan ahaan aan ka dareemi karnaa markii maaragtay dhibaato qof ku dhacdo wuxuu ku hadaaqaa uu leeyahay alla tollaayey baayey tolbeelayey waa halka uu maaragtay ninka mu'minka u dhihi lahaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun subxaana allah intuu dhihi lahaa ilaahay kaashan lahay tollaayey maanta allah haddaan tol lahaan marka tolka inuu ku nool yahay ayaa tan muujinaysa midda kale waxaad arkaysaa xataa markii qofka arrin la soo gudboonaato oo keligiisii ahay oo go-aan uu qaato uu waayo garan lahay tolow seen yeelaa buu leeyahay tolkiina lama joogada ilaahow seen yeela xataa intuu dhihi lahaa tolow seen yeela waa arrintaas saasay noqotay gaaladii oo ah masiixiga ah waxay leeyihin oh my god ay dhahaan yaa rabbi ay leeyihin marka inagoo soomaali muslina ah tolka meeshuu gaarsan yahay heerkiisii ayaa taas aad ka garanaysaa marka haddaan soo koobo waxyaabaha maaragtay dulmiga ah ee dhaqanka xun intaa waxaan ka soo hadlaya dhaqanka xun oo ka soo horjeeda nidaamka dawliga ah iyo diintaba ka soo horjeeda haddaan soo koobo dhinaca bidix waxaa waaye dhaqanka reer guuraaga ee aan fiicnayn dhinaca midigna waa nidaamka diinta iyo dowladnimada waxa ay ka qabaan kow kan reer guuraaga wuxuu leeyahay qofka wax dila gar iyo gardarro lama ciqaabo oo tolkiisaa difaaca diinta iyo tan madaniga ah waxay leeyahay qofka wax dila waa in isaga la ciqaabaa oo mas-uuliyaddiisi qaataa diinta iyo dowladnimada labo diyada qofka ee la dila tolka ayaa qaaraan ahaan u bixiya dhinaca midig diyada qofka wax dila ayaa laga rabaa ma aha maaragtay qaaraanka waa waxa isku xirxira qabiilka xataa saddex afar waxaa jira gar cadaawe iyo gar sokeeyo xeerarka reer miyiga waxaa jira marka sokeeyo uu yahay garta tii aan soo aragna waay laakiin hadduu qabiil kale uu yahay gar cadaawaa la yidhahda looma naxariisa labadaa gara ayaa jira laakiin dhinaca midig garta isku mid ayaa maaragtay ayaa loo qaadaa cid kastoo ay ahaato shan waxaa la xalaalaystaa in la dhaco geela qabaa'ilka kale ayaa maaragtay la xalaalaystaa oo xataa maxaan ku yidhaahdaa nimankii gabyaaga ahaa iyo nimankii maaragtay ay dhici jireen ama wadaadada xataa dhinaca kale waxaa in hanti la dhaco waa xaaraan geelba ha ahaadeen haweenayda dhinaca bidix haweenaydii saygeeda ka dhinto waxaa lagu khasbaa inuu guursado dumaashigii si xoolihii iyo aan la wareegin cid kale aan u guursan laakiin diinta iyo nidaamka dawliga haweenaydaas khiyaaray leedahay qofkay rabta ay guursanaysaa dulmiga marka arag yacni dhaqanka miyiga intiisa xun waay ma sheegayo ani dhaqanka oo reer miyiga dhinac xun ee waad aragteen dhinaca wanaagsan iyo suugaanta iyo laakiin kan xun oo aan waafaqi karin dowladnimada iyo diinta mushkiladan haysata oo bilowga aan ku soo bilaabay saddexdii sawir waxyaabahan ayaa u daliil ah waxyaabaha isdhexgalka saddexdaas nidaam waa kan saddexdan nidaam ayay soomaalidu ku wada dhaqantaa nidaam dawli nidaam diimeed iyo dhaqameed marka saddexdanba waa la wada leeyahay laakiin waa la kari laayahay sidii la isu waafajin lahaa weliba midka si fiican midna si fiican looma haysto haddana haddii kii miyiga la haysan lahaa oo soomaali 25 sano maaragtay lama dagaalami lahayn geed hoostiisa la tegi lahaa maaragtay si uma la yeelaa kii oo dhibaatada kaasna lama haysto shareecadii markay timidna waa tii hadatee ka taro dibi dhal oo diintii la isku laynayo tii dowladnimana lamaba yaqaano maaragtay waa ka daran marka arrintaas ayaana maaragtay ayaa inta badan
loo aaneyn karaa burburka soomaaliyeed sidaa aniga ila tahay waay marka qabyaaladda sideedaba waxay ka dhalatay maxaan ku yidhahdaa miyi xoolo raacid xoolo la dhaqdo iyo dowlad la-aan ayaa keentay qabyaaladda sideedaba laakiin haddii aan magaalo nimid oo dowlad aan leenahay oo geel iyo lo waxba aanan dhaqanaynin oo maxaan ku yidhaahdaa baadiye miynan la joogin beled la joogin dhaqankaas ma ku maaragtay habboon yahay waaye in magaalo lagu dhaqmo horena waxaan u sheegay dhaqanka sidiisaba wuxuu ku salaysan yahay deegaanka iyo waxa dadka maaragtay xirfadooda ay tahay haddii wixii dhan ay isbedeleen qabiilkan lagu dhegan yahay ama qabyaaladan lagu dhegan yahay masad bursi iyo xasaanad baa dantu ay tahay miya abtiisa wanaagsan lamaba hayo si fudud ayaa maaragtay faraha looga qaaday laakiin qaybtiisa xun ayaa soomaalida meel kasta ay joogto yurub ha joogto ama meel deegaan kasta ay joogto kii qaybtiisa xun waa kan qabyaalada waay kii ayaana maskaxdoodii marna aana ka tirtirmaynin taasoo u horseedaysa cadaalad darro dowlad haddii cadaalad ay dhowrto ilaahay waa u gargaara gaalaba ha ahaatee haddii cadaaladda aana dhowrin ilaahay uma gargaara muslimba ha ahaadee tanna waxaa u daliil ah dowladaha reer galbeed oo gaala ah oo u horumareen waxay ku horumareen waxaa waaye waa cadaaladaas oo horey culimmada ay u sheegteen taasaa markhaati u ah marka maxaa xal ah warkayga waa bad in dadka la dhiso waa mudnaanta koowaad horta ayaa ah xagga aqoonta barbaarinta suuban oo kala sooci karta xumaanta iyo samaanta haddii dad aan la dhisin dal keliya aan dhisno yacni waxaa waaye waa mid khasaaro leh mithaal waxaan usoo qaadanaynaa dadka taarikhyahanada ah waxay yidhaahdaan shiina waxay leeyihiin waxay samaysteen waa dad xadaara fog ay lahaayeen yurub iyo carabta ayaga ka horreeya xadaaro lahaayeen marka waxay sameeyeen derbi dheer ayay sameeyeen derbigii shiinaha la yidhaahdaa oo 3 qarni miilaadiyada ka hor ayay sameeyeen maxay u sameeyeen weerarka badan mongolia ha ahaada weerarka badan lagu haay ayay waxay rabeen inay iska difaacaan derbi ay sameeyeen marka waxaa la sheegaa qarnigii koowaad marka ay sameeyeen gudihiisa 3 jeer ayaa weerar ba'an lagu qaaday inteena laga galay derbi lama soo marin albaabka weyn ayaa laga soo galay maxay sameeyeen rashwaysiiyeen dadkii albaabka joogay marka derbigii la dhisay intaas rafaad ah loo maraay si fudud ayaa maaragtay inta looga galay sababtoo ah ma dhisin dadka derbi ay dhisan marka kan waa darsi fiicanoo oo marka hore waa in dad la dhisaa dadkaasaa dhisaya marka derbi iyo wax u taro maxaan ku yidhaahdaa ummadda haddaanan dadka la dhisin waa dhibaato aan dhammaanayn marka waa in dhaqan magaalo oo suuban maaragtay inaan yeelano oo iska maaragtay iyadoo la ilaalinayo diinta iyo dhaqanka soomaaliyeed ee suuban iyadoo la ilaalinayo waa inaan dhaqan magaalo aan yeelanaa maadaama degaankii iyo hawshiiba ay isbedeshay reer galbeedka inaan ka qaadano wax alle wixii suuban oo waafaqsan diinteeni iyo dhaqankeeni waafaqsan marka dhaqanka waa la kala ergadaa waa la kala qaataa waqtigii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam waa tii maaragtay nimanka bershiyanka ay ka qaateen maxaan ku yidhaha xeel dagaal ninkii farisiga ahaa salmaan alfarisi oo khandaq godkii uu qodaay marka waa la kala qaataa dhaqan wixii waxtar ah aan ka hor imaanaynin soomaalida sida qabyaalada ay ugu dhegan tahay uguma dhegana dhaqanka qaybtiisa wanaagsan oo aniga aan halkaan aan ka soo wada koobi karin si fudud ayay maaragtay dhaqanka dhinaca wanaagsan ay soomaalida u dayacdaa haddii aan ka soo qaado mowduucii cabdiraxmaan oo kale waa tusaalo waa afka hooyo oo ah shaygu ugu muhiimsan ee midaynayo ummad waxyaabaha oo ummad midaynayo oo maaragtay lagu faani kara waxay tahay maaragtay in la daneeyo afkaaga aad danaysid waa midka dad midaynayo ma aha diin muslimiin diin haddaad tidhaah dad badanaa la muslim ah
haddaad tidhaaha maxaan ku yidhaahdaa waxaan midaynaya maxaan ku yidhaahdaa dhaqanadina waa kala duwan yihiin. haddaad tidhaaha waxaan midaynaya maxaan ku yidhahdaa qaabka, dad badanoo soomaali u egaa jira oo etoobiyaan iyo oromaa, marka laguma salayn karo shakliga iyo diin iyo dhaqan, laakiin waxyaabaha midaynaya waxay tahay waryaa qofka hadduu ku yidhaahdo khalaas inuu soomaali yahay waad garanaysaa sida maaragtay ay soomaalida ay isku aqoonsato markiiba. marka afka waa waxyeeladiisii waxaa ka mid ah iyadoo badan oo cabdiraxmaan si fiican ugu taagtaagsaday, waxaa waaye in la darajeeyo darajo iyo sharaf lagu raadiyo af shisheeye in lagu raadiyo, taas waa waxyeelada afka baabi'inayso. markaas ayaana afkii laga faanayaa lagana xishoonaya ku hadalkiis. haddii marka tusaalooyin oo aad u kooban aan halkan aan idinka muujiyo, mithaal inta aanan ingiriiska iyo talyaaniga waxaan noo imaanin af carabiga aad uu noo saameeya. af carabigana waa waxa aan walaalo nahay, af carbeedkii af soomaaliga waa laba ilmo adeera linguistic ahaan ama cilmi afeed ahaan laba ilmo adeera ah, midna mid kale kama imaanin, wax badan aan wadaagnaa. laakiin taas micneeda ma aha in erayo af soomaali sida cabdiraxmaan si fiican uu sheegay aan ku bedelno erey carbeed. sababta maxay tahay? waxay tahay adigu waxaad isu haysataa inaad liidato oo marka af carabiga marka aad ku hadashid inaad sharaf yeelanayso. tusaale 80meeyadii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed annagoo maaragtay markaas aan rabnay inaan furno kulliyatu al-lughat ama faculty of languages of shay waxa lagu yiraahdo ayaan rabnay inaan aasaas magacaan u yeelnaa niri. marka aniga iyo koox waxaan niri kulliyadda afafka aan dhahan. marka dadaa naga hor yimid war afaf waa maxay? kulliyadda luqadaha dheh. عربي ما هو اللغة ده أفف ما حيتها يعني فيري أفف وأفك وكان أصلي عن حتى قرنيسا أف صومالي لا لكن لغة صومالي وهذا المديت أفك هوية لغة هوية ما أفك هوية وأفوا معنى كلام هياشة مركا بالإهانة ده سأروي حويري وأنا لقى حب بدي على يري كل يد اللغة ده تي أياه هرقشي واللي تسيديت ميدي واي dad waxaad arkaysaa oo af Soomaaligood aad u wanaagsan oo suugaan fiican an leh ayaa waxaad arkaysaa erayo Soomaaliyeed kuwii uu sheegay Cabdiraxmaan yani kuwa ku sii weli waxa hoose asaasiga ah sida ukun waxay leeyihiin bayd inta ka hormoogay hadaa idin sheegay wiila Hargeysa tagay oo nin juud qaadi ah ayaa wuxuu raadinayay cusbo raadinay jaadu rabay ma og wuxuu rabay inuu sameeyo cusbo raadinay cusbo ma haysan maya marka waa soo noqday kaali idinku cusbo la'aan cuntaan miya kulli dhig karaad qabtaan markaas mid oo reer waqooyi oo xamar tagay wiri maxaa tiri way cusbo lama yaqaan milix dheh waaye markii dukaanka ugu horeeyay markuu tagay milix ma haysan ha waa kan waa marka milix carabi waa لكن عصبة أف صومالي أنا جو أنا ندورين يعني وقوي أف صومالي كأقوم أكسن لواء الله يفسح النحو أهانا أنا اعتراف صنع لكن حقيرات ده أرك ملح بيد وردرك إسكا غسال يعني أنت اللي لا إسكا درك إسكا غسال أيال الليل مركا أنت واحد كنت سيسا بيت الماء مسقول لما دي كرب ما أرتي بيت الماء عربي بيت الماء أدلاه مركا إريدا أو كله وحي كتوسايان سليدت أو يعني قيمة سويالد إن عربي مركا قاضيس مركا ضمبنا هذانا اللي جاري إن بربر كيكدب أف إنجليزي جاء أصلاً بنانك صباح مركو أركب صومالي إن الدوجة أو وحلو قري جري وحلو برين جري وحمارتي أها أفكي لو أديك سنجري معمولي وعبارة شبه midkaan abud soo eray oo u soo baxay bad banaan markaas waxaad arkaytaa 2016 commissionka la sameeyay 2016 electionkaas
ما lagu guulaysana I don't think inaan lagu guulaysana marka ninka af Soomaali ku hadlay miya markuu leeyahay commissionka maaragtay doorashada وما وسكي يراهد جودي دورشة شوف يعني كوميشن هدو يراهدو يعني شرف واي ما قصدي لكن إن سومالي ويدي قرما سوق شيء سوري أما قرما سوق شيء أنا لا 2009 كان سوق عليه أرهب يراهدو لبكون إسقال محاجر الصومالي ما تيران لهين ما أرتكو لبوا واكي أساسي هو تيران وحياة أففك لو أقول صراحة وحياة تيران يحبناها جركة مدح وحيابها واي تردي اللي سوي متبرنا أنا رأسي أما ما هيد كيجا أيا وحاء أيا إيماني سيدا أنا مركان أن رايت جريء ومركي دمبنا مارتي أن كوميونيتي جيت جريء ووحي جريء كليا أو أن صومالي حتى أنهم كدروا دبي دلوعة واحد أركيسا قلدي تي في يدو مارتي أفكي سحلها وحن حسوسنا BBC ده marka qofka af Ingiriis u soo galiye waxay sameyn jireen waa sixi jireen Soomaali sidaas ay dhigi jireen marka ay isku day jireen inay saxaan laakiin TV wax sixi lahaa oo Soomaaliga ah bal magaceedood fiiris SNTV Somali National TV waa kii Soomaali u jooga xamar u taag markaas loo waa macni TV-gi qaranka Soomaaliyeed Home Cable afkaas wuxuu yahay Home Cable Royal TV أقصد درا Universal TV Somali Channel أنا مدنا أنا ندورين يعني وحوا مقعي Somali اللواي Royal صبغر لكن سئو أهلو يعني دتك بسوجيته وإن إنجليزي ماشي وقرا دي كلمات حتى مركي اللي سو قرا نيوز وركه وصل وقرا نيوز هي الكورمرين marka maxaan ula yaabaynaa dhalinta qurba joogta ku dhalatay maxaa loola yaabaa idaa kaana rabu lbeyti bidafin daaribin fashimad ahla biraqsin ninkii shaacirkii uu yidhi haddii aabbo durbaan garaac uu bilaawo ilmihii maxay bilaaween inay cayaara marka aabbihii hadduu leeyahay commissionka maanta yaala aniga maartay transparency ila ma aha waxaan haddii aan yidhaahdo wiilkii maxaad ka sugaysaa sidaa darteed dhalinyarta waxaan arkaynaa inay ka xishoodaan ingiriiska ma ogi agtiina iyo meelo badan waxay ku xishoonayaan inay ku hadlaan afkooda hooyo ama ay ka faanaan waxaan TV mar aan ka dhageysanayo aan maqlay la leeyahay kuwa waxaa jira ingiriiska markay arkaan qof ku hadlaya af Soomaali hadduu nin yahay war waa Faarax he comes now from Somali badow waay hadduu yimid waay hadday gabar tahay war Xaliimo waay naga daa inaad maqasheen u maleena marka yani hadduu ku hadlo af Soomaali wuxuu u haystaa inuu maartay uu noqonayo seeriye B waxa la yiraahdo laakiin waa in dadkii la mid noqda qofka waxa cadeynaya Soomaalinimadiisa ama heybtiisa ama af Ingiriisi waxa lagu yiraahdaa identity ما ها دين يدغن سيدان هوران وشوغا لكن وا افكي وا هدي افكاس مارتي لان افك وحو حنبارسن يحي دغنكاغي دينتادي فكركاغي سوغانتادي وحيابا بدن ايو حنبارسن يحي افك هدي افكيسا هوي قف او لومي انتاس بوا لومينايا اف كليا ما دوماي دغنكي دوماي دينتي ايا كدومايس الا دينتاني maxaan ku yiraahdaa afkeeni wuxuu xambaarsan yahay oo u badan waa diin waay oo waana iyo khair iyo salaad waa diin waay marka saddexdaas waay wuxuuna rabaa inuu la mid noqdo dadka cadaanku la nool yahay laakiin isla markii seeriye B waxa la yiraahdo ayuu yahay mar walba haddii shaqo uu galo qofkaas mar walba waa la liidaa يعني حتى سي او توس انا ما ارتان اهان سي او ضدبن ولا ليدا marka adiga iska yeel si kasta aad yeelatay mar walba waxa tahay seeri B baa tahay sideedaba dad ummad hadii la rabo in ma aragtay
diintoodii iyo dhaqankoodii laga baabi'iyo waxaa laga maraa xagga luqadda ama afka ayaa laga maraa. haddii afka laga baabi'iyo afkiisa hooyo khalaas gacanuu ku jiraa, ninkaas waa la hantiyey. caruurteenna hadda waxaa loo hantiyey waxay tahay waa afkiia laga dhumiyey. waa adag tahay marka haddii mar afka laga dhumiye in soomaalinimadii aad ku soclis naga daa akhi nimankaas maaragtay maryoole waxooda iga daa iyo wax u ag hooy ninka aad waxaan maqlay hooy maxaad ugu diraysaa abtiga iyo adeerkeeda ku haysaa oo maaragtay dhaqankiia lagu baaray uu leeyahay uu ka reebay waalidkiisii xawaalada wax u diraayo. marka waxaa ilaa habboon maaragtay in aan yeelano dad shakhsiyad leh oo isku kalsoon inaan ahaano. qofkana marka haddii afkiisa hooyo uu liido waa maxay tahay shakhsiyadaadaa liidi. marka cuqda nafsiya waaye complex of inferiority yani ama talyaani waxay leeyahay complexity inferiority adiga waa ka liidata oo kale waay. afkaaga haddii aad liidid adigaa isliiday marka waxaa noqonaysaa dadkaasaa toosan oo waxaad noqonaysaa dameer dhaan raacday ayaad noqonaysaa. haddii tusaale aan ka soo qaado xagga inaan nahay dad iska maartay dhaan raac inaan nahay waxaad ka garanaysaa farta aan adeegsano waa far latiin oo waxay adeegsadaan yurub oo dhan farta latiinkay wada adeegsadaan. ha ahaatee waxay leeyihiin farahaas iyagoo isku mid ah ayaa qaarkood codadkoodii sida loogu dhawaaqaya kala duwan. qolo walbana sideedii ayay ku dhegan tahay oo ma bedesho sida ay ugu dhawaaqdo. marka tusaale haddaan soo qaada maalan afkan slovenia lidaa xarafkan ca soomaaliga ah za-o ayaa loogu dhawaaqa. afka poland acdaas iyadan hal zawa tan kore waa laba za. af ingiriisiga mar waa sa marna waa ka. af talyaaniga mar waa ja marna waa ka ayaa loogu dhawaaqa. marka innagan haddii caadeen sidii haddii ca aan ugu dhawaaqna maxaa naga reebay. poland waxaad arkaysaa labada xaraf la israacsiye caanka cada iyo ha-da la israacsiye ayagu waxay u tahay dhawaaq ahaan ha. swiiska idinku waxay idin tahay kha oo zurikh dad badan aan weydiye zurich ma aha waa zurikh kha idin tahay. ingiriiska ch ama cadii ha waa ja teacher oo kale. faransiiska c caanka iyo ha-da wuxuu u yahay sha u yahay cabdirashiid markay qoraan cabdi kahiib ay u qoraan. talyaaniga ch ama cadii ha wuxuu u yahay ka buu u yahay ka iyo kii ayuu noqonaya. talyaanigu wuxuu leeyahay xarafka ga keliya afar cod uu leeyahay. afartaa waxaa ka mid ah haddii ga iyo na laysu geeyo nya uu noqonaya manyo. ninka oo ingiriiska wuxuu leeyahay magno no aa la leeyahay manyo dheh aa leeyahay. pulya waa ji ga iyo la iyo iida waxay noqonaysaa gi pulya. shisheeyaha wuxuu yidhaahdaa puglia no waa la saxaya pulya dheh aa la leeyahay. marka waa lagugu khasbayaa afkaas. sidaa daraaddeed waxaad arkaysaa magacyo badan oo shisheeye ah sida loo akhriyo iyo aanan islahayn. andrewski waa ninka aad iyo aad u darsay af soomaaliga. anderzajaweyiski ma loo akhriyo andrewski aa la leeyahay. degol degoulle aan u akhrin lahayn degol ayaa la leeyahay. schmid new york stockholm balse ay u qoran yihiin sidoodii ma bedelaan. shisheeye ha u yimaado ama cid kale laakiin bal eeg magacyadeena hadda waay. marka aan soomaaliya aan joogno nuur xuseen cabdirashiid tusaale magacan iska soo qaatay far soomaaliga ku qoran. ninkaas haddii uu tago dalka talyaaniga wax la mid ah muxuu noqonayaa nuurtii labadii hal ubay noqotay. ingiriiska hadduu tago noor aa loo qoraya. faransiis hadduu taga nouur aa loo qoraya waa loo qoraya. marka xuseen arag inta sida isu bedelaysa xuseen sidaa ah. marka haddii
qofkii Soomaali oo magaciisi maxaan ku yiraahdaa sidaan loo qoro documenti kugu qoran nuur Soomaali ah oo dhalashadaadii maartay waxa kugu qoran haddana dalka aad ka timid nuur ama si kala ah koo kale asagana nuur si kala ah dalkii aan la tagno xaleeyahay haddii sharci uu jiro oo nidaam la raacayo xallee adiga keewaay waad ogtiin Yurub haddii magacyadaadi hal xaraf isdhaafsayn safaaradaada aad soo hagaajiyaa lee lagama yeelay hal xaraf ma ogi Swiiska hadduu indhaha idin ma artay ka qabsanayo anaga agteena hal xaraf lama ogola marka laakiin inaga kuweena waxa waaye magacyadeena sida la raba ayaa laga dhigaya yaana ka dhigay waxa waaye dadka aan namarti galiyay ayaan ka dhigay annagana ka bilaabayna baasaboorka Soomaali markii laga bixinayo Abdallah waxa la Abdallah Umar Mansour ayaa loo qoraya maartay xaggaaba laga soo bilaa maxay u yeeleen banaanka hadaa tagtid Abdallah ma karaaya oo maxaa ka galay banaanka iyagaba ma artay ku khasbay marka haddii maartay haddii arrinta ay saas tahay inagu maxaa inoo diiday marka in aan magacyadeena aan ku qorno habka farta af Soomaaliga hadday khaldaan oo u yiraahdo Abdallah no Abdallah aan leeyahay oo Farax no Farax sida ayagaba ay u saxan anagu waa raali gelinaa sida ayaga ay rabaan iyagana waa inay teen maartay sida ay u raacaan oo aan leelana shakhsiyad isku kalsoon aan yeelana aan noqon haddii adiga aan isqiimaan ninku qiimeena male maxaa yeelay waxaan leeyahay ila isku faraanay farta ay adeegsadaan anagu waa adeegsana ayagaba maartay farahoodii sida ay rabaan ay ugu dhawaaqaan anagana keeno inaan ku adkaysano sideedaba cid maartay far marka la qoraayo looguma tala galo shisheeye in la fududeeyo ee dalka cidda maartay ummadaas loo qoraayo ayaa loogu tala galaa si u fududaata markii inagu mana fahmin waxa waaye waxaan u fududeynaynaa maartay shisheeye maxaa naga galin marka farta af Soomaaliga ajnabiga isagana waa inuu u dhooraa sidii anaga aan u dhoornay laakiin haddii anaga aan dhoorin yaana dhowraay waay dhibaatada kalena haysata xagga magaca waxaa jira magacyada Soomaaliyeed inta ka horna waan ka hadlay daraasad aan wado waaye magacyada Soomaaliyeed waxa arkaysaa miisaal Maxamed Cali Cabdullaahi war ma aragteen Maxamed Cali Cabdullaahi ninka saay male Maxamed Cali Cabdullaahi oo qabiil walba ku jira ayaa jira marka waxa ii jilciyaa lagu leeyahay maxaad u jilcinaysaa tilmaansi waa inaad sheegtaa cid uu dhashay taas waa tilmaamay noqonaysa ama waa inaad sheegtaa shaqadiisa kii dhakhtarka ahaa ama waa inaad sheegtaa qaabkiisii maxamed Cabdullaahi kii buurnaana misma kii dheeraaba waa inaad tilmaantaa ama naanaystiisa waa inaad sheegtaa Soomaalidu waxay tiraahdaa qof aan naanays lahayn waa ri aan gees lahayn taasaa yani baahi naanays inay jirta yani macrifa lagu garanayo ayaa maartay ayaa mahmahdan ama orahdan ay tusaysaan muujinaysaa walow nasiib daro naanaysyadeenii ay u badan yihiin ilay gacamay madaxay dhagaweyne afweyne iyo jinoole iyo laangare iyo cabdiwaal iyo caashawaal iyo wax u eg maartay taasoo oo diinta islaamkana maartay quraanka sida aad ka warqabtaan oo diidaya in magacyadaas xun la isu bixiyo marka aan qurbaha aan nimid oo aan la nimid maartay la nimid Maxamed Cali Cabdullaahi nin ayaa yimid qurbihi marka malaha wax la yiraahdo sarneem ama magac qoys malaha maxamed cali cabdullaahi waa badan yihiin maxay sameeyaan marka aniga talyaaniga aan joogo waxaa la yidhi magac qoys samaysa waxaan idhi systemka anglo-saxon ah ayaan sameeyey nidaamkoodii oo ah first name iyo last name cabdalla waa magaca last namena mansuur aan idhi meesha askartaan tagay waxaa la yidhi kan labaadna maxaa waaye
ومجعي أبي كان ومجعي أوجي مجعي كواي عبد الله واي صار نيم كعمر منصور واي كذا فركاس واللي هو خصبي نظام كذا سداس مرك إنجليز كهذا مرك واكن هذا فيري محمد علي عبد الله إن أو صومالي مركو تجو UK محل اللي هاي عبد الله هي أيا وحنا نغنى مجا قويسكا محمد علي مجا وحنا نغنى إيطاليا مركا تكتت علي عبد الله كي أبيه أوجي أيا وحنا نغنى مجا قويسكا نغنى هدي سويسكا إيو وحنا مالين سويدن هذانا خلدنين إن مجا كي لباد أيا وحا إذن نغنى سرنيم مركا علي محمد عبد الله أبيه أيا ويلكي نغنى مقعان سيدان مركا أو باسبور أما دبلوم نوغو قرى هدان لا تغنى صوماليا أما دل عربيد لا تكتد وهذه إيا ويلكاغي اسكو مقعان نغطان هذه أنيق اللي يرادو عبد الله منصور إنجليسان جوغا أما سويدن wiilkayga la yiraahdo Abshir Mansuur ina walaalana iyo in kala lama kala garanaya iyo jahawarar hadii Soomaali aan tagana aan leeyahay aniga Abdullah Umar Mansuur la yiraahdo Abdullah waa aniga laakiin Abdullah hadaan gadaal aan mari Umar Mansuur Abdullah la yiraahdo waan noqday dokumentiga Soomaali lagu sameeyay iyo kuwi banaanka isma keenayaan waxa imaanaya jahawareer ayaa imaanaya marka waa fawdo waa nidaam xumo haddaba xalka wuxuu ila yahay maartay labadan magacyadan isu eg lagu wareer iyo sarneemyadan ama magaca qoyska oo maartay iyaga noo sameeyay xataa isku nidaam aanan ahayn guud mar ahaan waxaan rabay inaan fiirino sababaha dadka kale ay u yeesheen magacyada magac qoys ay u yeesheen iyo taariikhdooda haddaan guud maro dadku ugu horeeyay raadkooda lahay waa Shiinaha 2852 maartay miilaadiyada ka hor waa 4000 iyo wax la jira waa ayaa Shiinaha nin boqor oo waqtigaas jiray nidaamkiisi oo ay rabeen inay sameeyaan tirakoob umadoodii waa lagu wareeray magacyadii isu eg waxay hindiseen in xataa dadka shacbiga la siiya maxaan ku yiraahdaa magac qoys la siiya أول بقرة كلية أيا لها مجا قويس حتى جريجا إيو رومانك إيو جبانك بقرتويون كودي مجا قويس لهاين لكن شعبي ما لهن يوروب وعي بالله بين قرني دحى كوي تمناد إلى بقي تمناد أيا كل كي وحبتي ضدكي مية إن يكسو مارت هيامان ومقالو سوق الغلان أول ربع إن للديوان جليو dadkiina waa tarmeen tiradoodii markaasaa danta waxaa danku ku kaliftay in qof walba la siiyo magac qoys la siiyo oo kaasoo naanis ha ahaado ama deegaanku ka yimid ha ahaado magac qoys la siiyo ayaa ku kaliftay maxaan ku yiraahdaa xilligan casriga ama Yurub aan ka soo qaadna qarnigii 16aad ayaa Yurub ku badankoodii magac qoys yeesheen Netherland oo maartay qarni ka hor ay sameystay 1812 ayaa ay sameysteen waxa la yiraahdo Japan boqortooyada ma shacbiga waxay u sameeyeen 1870 Thailand 1920 Turkish waxay sameystay 1934 hada Turku waqtigiisa Afghanistan oo darad oo markii dagaalkooda u dhamaaday 10 sano oo hadda laga joogo ayagana markii tirakoob ay sameeyeen waxa danta ku kaliftay inay sameystaan magac qoys ay sameystaan oo laga tagaa magacyadan oo qadiimiga ah marka qaababka oo magac qoysyada loo sameeyay waxa cajiib aan la yaabay marka aan baaray ummadaha adduunka oo daafaha dunida kala degan oo afafkooda kala duwan oo dhaqankooda kala duwan haddana afar nooc oo maaragtay magac qoys ayay maaragtay ay wada sameeyeen sida ay is ogaayeen oo kale midka koowaad deegaanka uu qofku ka soo jeeda ayaa la siiyaa sida bush oo kale baadiye
hill waa buur waa maaragtay qof ka soo jeeda yamamoto japan waxaa lagu jeedaa buur gunteed bukhaari oo caanka ahaa waa magaalada uu ka yimid ayaa maaragtay bukhaari magaalada bukhaar la yidhahdaa kabuur hindi waxaa magacaas uu yahay magac rugeed ab jang shiina ayagana webi jang la yidhaahda ayaa ummad la siiyey moskova sida loo akhrinayo reer mosco oo adoo reer muqdisho magacaaga waxaa sarnam kuu noqday oo kale qaybta labaad xirfad qofka xirfadiisa ayaa maaragtay u noqday sarnam sida maxaan ku yidhaahdaa smith oo kale waa tumaal annajaar carabiga oo falayaame ama geed qore iyo wax u eg carabigan waa ka buuxa qolo kastaa leh tan saddexaad sifada qofka waxaad arkaysaa nin magaca qoys short ama brown waxa waa sifadiisa waa midabkiisa iyo gaabnidiisa tolstoy oo ninkii caanka ahaa naanaystiisii waxaa lagu jeedaa buurane alaxmar qabiil yemen maaragtay ayaa waxaa loo yaqaan alaxmar guduudane adoo tiri oo kale dogan erdogan turkishka waa galeyr gaawo shiina waxaa waaye waa dheer nin dheer marka sifada qofka waay kan afaraad waxaa waaye waa isirka qofka isirkiisi maaragtay oo ugu qadiimsan oo laba nooc ah mid wuxuu noqon karaa beesha qabiilka uu ka soo jeeda maalan waxaa jira aalan nahyaan ninkii boqorkii suldaankii imaaraadka aalan nahyaan waa reer nahyaan irishka waxay qabaan obrian sida loogu dhawaaqa fiican ma aqaani ooda waxay u dhigantaa reer brianna magac qabiil waay cohen yahuud marka ay leeyihiin waa qabiil marka cohen aad aragtid qabiilkaas wang shiina waa qabiil iyo kaas oglo waa isagana magac qabiil oo turkishka ah magacyada abkiisii loogu abtiriya ayagana carabta iyo yahuudaba waxay isticmaalaan ibn khaldum bin laden bin gorian ibna ama bin ay isticmaalaan marka waxa waaye waa abka aabihiisa ma ahe waa mid ka mid ah abtirsigiisii ayaa ibn khaldun markii la leeyahay waxaan arkay waa abkiisii shanaad lixaad maaha aabihiisii khaldun reer galbeedkana waa la yaab aan la yaabay waxa waaye noocaas oo kale qabaan powell ninka la yidhaahdo wuxuu ka yimid ab howell ab marka waxa waaye waa ina ibnihii oo kale waa ibna howell oo kale waa laisku dejiyey marka powell uu noqday mac nile sidii macdonald la leeyahay mac wax kale ma aha waxa waaye ibna ama ina nile john Gerald Kennedy waa madaxweynihii waxa ahaa Mareykan Fields waxa ka yimid asalkiisii Latin waa Filius waa ina Gerald oo kale Gerald bal fi Hungarian Fidas waa ina Ivanov Rushka waxa waaye Nov of Tas Wilson marka lagu leeyahay William son of William iyo Johnson iyo waxa wax la soo koobi kara ma carabta magaca ibnu taymiya haddii aan fiirino ibnu taymiya la yidhi haddii aan fiirino asalkiisi wuxuu ka yimid maaragtay intaas axmed bin cabdulxaliim cabdisalaam bin cabdalla bin ka ugu dambeeya taymiya waay marka kii ugu dambeeyaa lasoo qabtay last namegii oo kale waay alaleeyahay maxamed yaan u malaynaya magaciisa inuu ibnu taymiya reer galbeedka waa la mid irishtaana ugu daran sida carabta oo kale ayay abtirsigoo ay u lahaayeen maaragtay oo waxay isticmaalayeen halka oo ina ama ibna ab ay dhahayeen maxay dhihi jireen laywaliin ab dafliin ab leeb ab ma ujeeda sidii ibna oo kale markii dambe waa soo koobeen laywaliin ab gruferd ay ka dhigeen haddana waa sii koobeen waa dheeryahay lolaliin abti waxaa lagu bedelay s oo gadaal loogu daraayo waad aragteen reer galbeedka s ayaa u wada badan maaragtay gadaal loogu daraayo abkii saa lagu bedelay marka meeshii marka waxay ku tusaysaa in
magacyadan xataa reer galbeedka sarneemyadan ay ku faanayaan wax kale ma ah sida kuwii carabta oo kale oo maaragtay magac oo ab ayaa maaragtay lasoo koobay maanta madaxweynayaasha waxaad arkaysaa faransiiska François Hollande aan u jeedno asalkii wuxuu yahay François Gerald Georges Nicolas Hollande marka abtirsigii waa waxa la soo qaatay Holland ugu dambeeyay François waa magaciisi waa Bush George Bush George Herbert Walker Bush inta dhan waxay muujinayaan magaca qoyska inuu ka soo jeedo abtirsiga haddaba maxaa inoo diiday anaga inaan ma artay aan yeelano magac qoysya sida carabta iyo reer galbeedka ilaa abtirsi waa leenahay qabaa'ilkan isku leenahay qabaa'il magaciina waa leenahay maxaa inoo diiday inaan magaaleyno oo magacyadeeni magaca qoyska marka wuxuu noqon karaa magaca reerka aan ka soo jeedno ama wuxuu noqon karaa abtirsiga nin walba abtirsi uu leeyahay hal magac oo qariib ah oo yacni aanan badnayn baxsashadiisii in la soo qaado oo maaragtay ku darsada ama naaneys fiican inuu yeesho waa xalismi lahayd arrintan مثلا هذا فيري مقعيدان سدحدان مقع محمد إبراهيم ورسمه أحمد محمد محمود يا واي محمود عبد الله عيسى يا واي ما كسكرنا وبعدين محمد عبد الله عيسى وابوحه لكن هدي كان هراء أنكر هذا محمد إبراهيم ورسمه هدراوي نعم الميريان وفهم هاي أحمد محمد محمود سيلايو أداني هذا ولا فهم هاي محمد عبد الله عيسى سانجوب وعلى فهمه marka aragnaaneestaas hadii la wanaajiyo yani waxa way dadka waa ka soocaysa si fudud ayaa maartay lagu tilmaansanaya ilmaha xataa aad siin kartaa marka si oo wiilka iyo adiga isku maartay mid aanun u noqonin waa in saddex magac aan yeelanaa magacaagi magaca aabaha iyo kan qoyska marka ani tolo ahaan waxaan soo jeedin inta ka horna waa idin sheegay xalle faaduma مثلا aadan xanaftire abtirsan ka soo bixi xanaftire dirwaay ali xuseen makan ahmed maxamed ciida gale maxamed aadan celi jaamac faarax talareer xasan eedan geeda fadl geeda fade suufi aweys gudmane ma haddaba qabiil waa sheegnaaye waan isku leenahay hadii la sheego maxaa noo diiday habkan haddaan yeelno waxay noqonaysaa hal dhagax afar shimbir ku dil maxay tahay waxa waaye midda koowaad magacyadii isu ekaa ayaa kala baxaya tan labaad magacyadii oo nala siiyey sarneemyadii ayaa maaragtay waxay noqonayaan meesha ka baxaya tan kale marka saddexaad waxay tahay naanisyadii xumaa ayaa meesha ka baxaya intee lagu dhihi lahaa afqalooc iyo waxaas ah naanisto fiican samayso tan afaraad waxay tahay waxaa caadi noqonaya magacyada qabaa'ilka oo hadda beryahan bannaanka lasoo dhigay awal waa la qarinaya waana la isticmaalaya 60 sano dowlad aan qabiil ku dhisnayn ma jirin mana la sheegaya oo mamnuuc ahayd hadda waxa waaye annaga kama muuqana baarlamaanka aniga waan ka maqanahay waaye qabaa'ilkii bannaanka la soo dhigay marka ani arrintan waxaan u jeedaa inay tahay wax oo afkishay lagu yiraahdo positive wax faa'iido leh in la sheego waa laga xiisa beeli doonaa goordhow aad arki doontaan maartay sheegida qarqariska waxa la qariya ayaa maartay sida carabta ay tiraa wixii la qariya ayaa maartay kullu mamnuuc marghuub wixii la reebaba ayaa aad loo jecel yahay marka haddii qabiilkan la sheego wuxuu noqonayaa qabiilkii wax caadi uu noqonayaa sida quraanka uu sheegayana wuxuu noqonayaa waxaan isku aqoonsano li taarafu li taqatalu maaha waa inaan isku aqoonsano sida quraanku sheegay in qabiilkiisaas ay yeelo marka waa ku dheeraaday raalli ahaada in wixii su'aalo ah ani luqadda ama afka xoog ma saarin maadaama shirkii hore aan xoog saaray xagga afka laakiin wixii su'aalo ah oo ku saabsan af dhaqanka dadka qaarkood ayaa maartay iga faradhu dhuubanaa jira laakiin intii tabarteeda waa rafanaya
waxaa jirta in badan baa isku tacalujiyay inaan ogaado bal afka soomaaliga iyo da'diisa maadaama adigu tahay nin khabiiru ah markaa ma jirtaa da' la yaqaano oo afkeena uu leeyahay oo la odhan karo ilaa cimri intaa leeg buu jiraa qiyaas ahaan xitaa dad badanna waxay inta badan sheegaan marka laga hadlayo soomaalinimada isinkeeda laftirkeeda inaanay dadka soomaalidu cimrigoodu aan da'doodu weyneyn afkan waxaa lagu sheegay inuu da'diisu weyn marka waxaan rabaa inaan ogaado si aan isugu dheeli tiro afka soomaaliga da'diisa ilaa afka hadduu jiro dadku intaasay jireen su-aasheeda labaad waxay tahay qoraalka afkeena waxaa la qoray sidaan wada ognahay 1972 iyadoo la hirgeliyey markaas laakiin qoraallo fara badan siduu waxaashe uu sheegay maanta ay jireen waxaa kaloo ay jiraan aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed ay qabaan inaynu leenahay fir wadaag iyo isir nimanka la yiraahdo faraacinta oo ah farta adduunka ugu horeysay ee la qoray marka haddii isku afnahay miyaa la odhan karaa afka Soomaaliga waxaa la qoray 72 waa haddii aynu fir wadaagno faraacinta oo mahadsantahay da'da af Soomaaliga aad iyo aad u maartay u facweyn yahay ma la dhihi karaa sanadkaasuu bilaabmay cid dhihi karta male afka si aad ka warqabtaan waa isbedela ma aha sida wax meel taagan afku anigu waxaan ku misaalaa ama qolada linguistiga ay ku tusaaleeyaan geed markuu baxayo xilli roobaad markii la gaaro caleemo cusub ay u soo baxaan hoosna caleemaha maartay oo qorraxda aan ku dhacaynin oo waxa la yiraahdo photosynthesis-kii ay gabeen waa dhacayaan ilaan waxa qorraxdii aan ku dhacaynin intay ay noqdaan maxaarta la hurdi ay noqdaan ay dhacaan kuwa cusub soo baxay haddana xilliga kale kuwa kala soo baxay kuwa gaboobin waa dhacaya afkana waa tabtaas sidaa daraadeed afka mar walba waxa isbedel ku ridaaya waxa cusub oo dhaqankii isbedelaya meelo badan ayaan ku sheegay misaal haddii raagugaas oo qarni iyo bar koor uu noolaa maanta uu maartay halkan yimaado afka aan ku hadlaya hadduu maqlo wuxuu leeyahay af Soomaaligan muxuu yahay aan leeyahay maartay television iyo maxaan ku yiraahdaa miis iyo nal waxyaabahan oo marka afkan ku larmay wax isbedelay booskoodina waxa lumay erayo oo miiga lagu isticmaalay ayaa lumaya sida muraado kii aan hadayo aan sheegayo oo kale malaha wax oo la isu qalaayo nin dambi gale eragaas maca dhaqankiisana waa dhumay marka waxaan lumaya waxna ku soo darmay ayaa afkii isbedel u keenaya marka taas ayaa maartay keenaysa inaan la ogaan karin marka af Soomaali goorma af Soomaali la yiri lama hayo ereyga Soomaali markuu ugu horeysa waa 1400 iyo dhowr sano ayaa qoraal meel lagu arkay Soomaali ka hor lama hayo marka mala awal ay tahay marka magaca aweedid xataa Soomaaligi afkii lagu hadlay ma haysid goormo bilaamay laakiin markii la sameeyay cilmigan isbarbardhiga cilmi afeedka markii la sameeyay in Soomaaligu uu qadiim yahay ilaa 3000 sano ma aragtay ay niman Soomaalidu waa wax dad soo hayaamay oo ka yimid meelo kala duwan ka yimid ayaa lagu qiyaasaa kala baxoodii Soomaalina ma ahayn markii Oromada iyo Randiile iyo qolooyin badan ay isku jireen hal afay ahaayeen marka gooni markay u baxeen ayaa hal qoys uu noqday Soomaaligi oo gooni u baxay sidiisu marka uu go'ay oo maartay uu sameeyay waxa la yiraahdo tatawur uu sameeyay isu bedelay daama hayna tan faraacinada aad sheegaysay af Soomaaliga iyo afka faraacinada anagu linguista ahaan يعني af Soomaali ma aha laakiin dad oo maartay dhinacaas kor wax ay ka eegayaan ama ereyo ay arkeen Soomaali waaye oo iska caatifa laakiin scientific ma aha cilmiyeysan Soomaaliga iyo faraacinada waxay kaliyiin laba bax waxa la yiraahdaa afafka kushitik ayuu Soomaali ka mid yahay faraacinadana afafka waxa la yiraahdaa faraacinadii hore oo sida afafka berbera
afafka omotic afafka chatic kuwaanoo dhan waxaa laysku yidhaahdaa afafka xamito-semitic xam semiticna waa gaar marka waa bax oo asla dhalatay ayaa maaragtay afka masaarida hore iyo af soomaaliga waa bahwadaag laakiin hal bah ma wada aha marka sidaa daraaddeed ma oran karno markii la qoray faraacinada af soomaaliga la qoray af soomaali kuma hadlayn taas caatifo waaye dadkay leeyihin fircoon soomaali waa firkii coon waaye tan waa iska maaragtay waxaa la yidhaahdaa folk etymology marka oo liska qiyaastay waaye carabta waxay tiraa farracown waxaas labadaasba been waaye waa qaabka lama fiiriyo ee waxaa la fiiriyaa wax kalaa jira oo baxso ah oo loo faxso oo loo baaro su-aasheedu waxaa weeye af soomaalidu waxaan ay tirinayso ee afrika ilaa inteebuu run ka noqon karaa waa maasantahay miyay jirtaa eragti loo sameeyey waxyaabaha naqiiqka ay nagu cusub yihiin lagu shaqeeyo qalabka lagu shaqeeyo hadday jiraanna qaabusyo loogu hagaagaayo oo laga isticmaali karaa qabyaalada doonayna ka hadla brofesorada dadka waxbara ee soomaalida aqoonta heerka ka gaadhay waxaa jira kuwo fara badan oo marka dhibaydada ay samaynayaan aada fiirsato aada moodo inay u xaqlinayaan qabiil ama deegaan qaarkoodna waxaaba dhacday in lagu duudsiyey qabiilka laftigiisa oo ay maqaamkay doonayeen inay gaadhaan ay gaadhi waayaan oo ay dib ugu soo laabteen deegaanadii ay ka yimaadeen iyo qabiiladay ahaayeen oo qofkii markaa halkaas uu dhidibada ku aastay inuu marka dambe qabiil difaaco qaarkood waxaa hor yimaado kumanaan kun oo cadaan oo ardaydooda ah marka haddii uga jiro qof soomaaliya oo aqoonta ka gaadhay inuu dayax-kamceedka dhiyo marka uu dhulka soomaalida yimaado wuxuu noqonayaa qabiil amaba waa kuma ayaa la odhanaya waxaana lagu duudsiyaya haddii la doono qabiilkuu yahay dadkii aqoon-yahaninta markay sidaa ay u dhaqmayaan soomaalida waxaa ku maahmaahdaa awrka dambe awrka horu socodkiisa leeyahay amaba ma garanaysaaye geela arankiisu durduriyey maxaad u malayn kiisa waaweyn su-aasha labaad in doonayo inaan ku weydiiyo iyaduna qabyaalada ku saabsan ayaa waxay tahay in xitaa dadka ay waxu yaro dhiman yihiin qaarkood ay waalan yihiin ay marmarka qaarkood ay fahmi karaan inay ku badbaadayaan tusaale ahaan muse jaamaca hargeysa iyadoo lagu jiro salaad jimco ah waxaa dhacday inuu nin yaro waalan uu sanifo nin ka horreeyey kadibna uu gud meesha yaalay odayaashu ay wateen intuu qaatay uu ku garaaco kadibna uu dakray wadaadkiina uu yidhi ninku waa shaydaan de hala qabto kadibna ninkii markii lagu soo dhaqaaqay ee laysla qabto dee dila waxaa dhacday inuu yidhaahdo tuleeyaa ree hebelaay oo dabeetana la yidhi ka joogaay oo marka dadkii waa laasaasay u garanayaan xitaa qabyaalada in lagu badbaadi karo sheekh cali abtirsiga waa ani buugan ka qoray waa mowduuc aada u ballaaran aan halkan hadda ka jawaabi karin abtirsiga af soomaaliga laakiin isagoo kooban waxa waaye waa wax laysku rakabee waxaad arkaysaa abtirsiga soomaalida 3 lakab ayuu leeyahay kor waxaad arkaysaa caqiil binu abi aalib ilaa soomaali laga gaaro soomaali ilaa laga gaaro 10 waxaad arkaysaa magacyo oo maaragtay aan soomaali aanan ahayn haddana 30ka dambe qaybta dambena waxaad arkaysaa magacyo cabdullaahi maxamed faarax ayaad arkaysaa kuwa dhexe waa magac aan soomaali aan ahayn walaa carabi aan ahayn maaragtay oo wada taqaaniin markii aad leedahay wacbuudan ama aad leedahay kombe ama aad leedahay yani magacyo soomaali aan la garanayn marka waa wax laysku rakabay badanaana inta aan soo aruuriyay waxay gaarayaan ilaa 30 ilaa kuwa ugu badan 40 waayo marka kadib kan oo aadan galay horta nabi aadam galay kaas tiro kuma jira nabiga calayhi salaatu wasalaam waatuu yidhi yaan la idhaafsinin ilaa cadnaan maadaan
marka kuwaas tiro kuma jiraan laakiin kuwa gaarsiinaya ilaa cali ilaa meeshaas ayadana fara ku jirtaa oo waxay u baahan tahay buugga hadduu goordhow soo baxay insha allah ayaad ka bogsin kartaa abtirsigaas ma aha wax oo maaragtay rasmi ah ma aha qolo walba waxaas waa leeyihiin axmed wuxuu yidhi erey bixinna waa la sameeyey laakiin ma wada dhamma markii af soomaaliga la qoray maxaan ku yidhahda guddiga af soomaaliga waxay sameeyeen erey bixin ay sameeyeen wasaarad walba erey bixin ay samaysay wasaaradda difaaca erey bixin ay samaysay caafimaadka waxbarashada waa la aruuriyey iyo maamulka guud iyo erey bixinno oo ah maadooyinka sayniska ah geography iyo xisaabta iyo waxaas waa loo sameeyay erey bixinno ah waa la sameeyey marka iskoolaadka laga dhigayay waa jiraan erey bixinadaas anigu waa aruuriyay wax alle wixii hore loo sameeyey waa aruuriyey laakiin kama helaysid maanta combyuter iyo internet iyo waxaan casri walba soo baxay waqtigaas ma jirin kama helaysid laakiin haddaad geshid maxaan ku yidhaahdaa google haddaad geshid cabdalla cumar mansuur aad qortid oo aad qortid haddana diiwaanka buugga diiwaanka erey bixinta waxaad helaysaa wixii oo aruursan ma qorin aniga wixii aan aruuri waay collection waay marka waa laga yaabaa inuu ereyo qaarkood aad ka heshid laakiin ha sugin maanta kuwa casriga laptop iyo kama helaysid haddaan usoo gudba maxamed cabdi qabiil waa tan haddayo aan sheegayo waa yacni waxyaabaha na haysta soomaali dhibaatada ugu weyn na haysata waxa waaye waa maskaxdeena ma bedelmin laakiin shaarkii iyo maaragtay garawaatigii waa qaadanay guryihii nalkii wixii waa qaadanay laakiin inta ma qaadan weli qaybtii haddayo aan sheegayo qabyaaladda ayaa maskaxda noogu jirta kii wax soo bartay PhD ama professor uu yahay markuu dalkiisu ku noqdo waxa waaye qabyaaladii ku jirtay oo wax yar intay ka tirtirantay markuu meesha tagay deegaankii ka xoog badiyey markaasaad arkaysaa oo dadkii ay jiiteen iyadoo awalba aana dhammaan ayaa haddana cawskii dib u soo baxay marka qabyaaladda maskax waaye maskaxda ayaan maaragtay dhibaatada naga haysata tan aad sheegaysadna waxa waaye xataa culammada soomaalida hore u tiri fiqi tolkii kama janno tago maarta fiqi waa ninkii diinta yaqaan oo xaqi iyo baatilka kala bixin lahaa ayaa isla soomaalidii xoolo dhaqatada ayaa ictiraafo ay leeyihiin maaragtay la jiifiyaa bannaan la joojiyaa bannaan ayay leeyihiin marka haddii aan fahmay su-aashii ugu dambeysay waa mid maaragtay chronic nagu awaayo hallow sahla umureyn كلمة شيبس معناها نقول كعانك بلا جعل بينتر وعقدي شيبس من يقان ما هذا كلمة شيبس معناها الله غدا يعني ساميتي شبي حاميتي ساميتي وحنا غانا سام إنه يهاي حامي إنه يعمل marka labada saamiti ee ku hadlaan xaamiti ee ku hadlaan inaa oga noo sheegto okay laakiin waxaa waye su-aal oo ka kooban labo soomaalida ama adduunka waxaad kasaa hadda babaay walaalkii soo dhinacaas mufafay mafafay ma horeeyey mise babaay adduunka dhan la ogaana soomaali ahaan iyo carabi ahaan labada isku halwa dugsi carabi waxaa mara almaalo shiibaan xataa waxdii okay waa markii labaad oo halkan loogu yimaado professorka wuxuu wadaa fariin oo u wadaa soomaalida ku nool ama jaaliyadda andaha ku nool halkan ayuu u wadaa ujeedada looga hadlayo af soomaaliga ama afka hooyo waxay tahay annaga afka soomaaliga waa ku hadalnaa laakiin caruurteenna inaan barno waa fariinta oo isaga wado bal isku daya idinka inaad aruurisaan caruurtiina iskoolaadkana furtaan wixii gobolkan ku saabsan
macallimiinta anaga xataa lacagihii iyo waxyaabihii la siin lahaa anaga raadinayno waanu la helaya waayo gobolka ayaa had iyo jeer la warsada war wiil iyo aabbihiisa loo kala turjumaayo hooyo iyo carruurtooda loo kala turjumaayo idinkaa idinka aragnay dhaqanku maadaama uu sii baaba'ay dad iyo dibadba seebaan ku badbaadin karnaa dhaqankeena suuban ee Soomaaliyeed aad u goobsiyo saalim shibis macneed ma aqaan meeshuu ka yimid labo saam iyo xaam waa ilmihii nuux iyo yaafid saddexdoodii marka saam waxaa ku hadla ama faraciisii waxaa la yidhaahdaa carabta iyo banu israa'iil oo walaalaha ahaayeen afsaamay ku hadlayaan xaam waxay yihiin masaaridii hore soomaalida kushiitigada berbera dadka la yidhaahdo tuareg iyo meelaha ay degaan kuwaas ayaa faraca ay ka dambeeyaan tan aad tiri mafafaay meeshuu ka yimid ma aqaani taas cilmi mali alif la kordhaway alif hoos dhaway waxaa tarjumay la yidhaahdaa allahu yaclam yuusuf kowneyn ayaa maaragtay alif la kordhaway oo soomaaliya lahjad kastaba ha ahaatee isku mid alif la kordhaway alif la hoos dhaway alif hoos dhaway taas waa ka baxay tan dhaqanka saan uga baxaynaa ninka ugu dambeeyey sida keliya aan looga bixi karo waxa waaye mas-uul koowaad waa hooyada in maaragtay ay ilmaha af soomaali guriga kula hadasho aabbahana gacan ku siiyo la baro guriyaa lagu bari karaa ma aha iskool keliya iskoolkana waa dhammaystir waay guriga waa in lagu qoraa sida dadka qaarkood noodaj in guriga lagu qoro oo lagu khasbo inuu ku hadlo af soomaali lagula hadla hooyada taasaa maarka